Audio Jungle. 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 gruubkii baarlamaanka iyo labadii ku-xigeenkii guddoomiyaha meelay fadhiyaan guddoomiye ku-xigeenkiina meeluu fadhiyaa dowladduna jawaab lagama hayo ciidahan caadib xukuumaddu oo wasiirkii arrimaha gudaha oo aad la ballantay oo ballantiina kaaga baxay anigu ma aqaan hadda inuu kuu soo cesho jawaab kale iyo in kale haddaad wax war nooga haysan inaad noo sheegtaan jeclaanahaynay annagoo weliba adiga kuunimada kuwa weysiino ku niri dowladda naga gaarsii waxaan doonaynaa arrintaa inaan wax ka galno marka waxaan soo jeedinaa waxay tahay haddii maamul goboleedkii annaga aan wakiilka ka ahay haddayna xukuumaddii wadatashi naga siinayn maxaan meeshaan ka fadhinaa runtii inaan iskala saarsaarno ma qabno nidhaahay hirshabelle iyo laakiin meesha soofaa ka dhacay wixii aan hor saarayna waxa weeye waxbaa la riday iyo waxbaa la sheegaya sida loo riday sharci ma tahay sharciyad ma loo maray constitutionkooda muxuu sheegayaa arrinkaasna waxaan is leeyahay in loo diro doorka nooga aadan inaan qaadano oo guddoonka nagu iyo xukuumadda iyo in la iswaafajiyo dadaalada socda aan filno state kasta oo dhibaato kusoo korortay in guddi degdega loo saaro oo xalkeedana golaha dhex keeno oo la yidhaahdo maxaa lagu xalinaa problemkaas jiro inaan ka aamusno ma ahan in aan informationna aan laga hayninna maaragtaaye saacaddaanna ma qabato problemka waddanka ka socdo oo maamul goboleedyada ka socdo dadkii la laayay oo marastaaheedoo lagu laayay jilib in warbixin laga keeno sababtii loo laayay yaa laayay la yidhaahdo dagaalka xiraada ka socdo in warbixin laga keeno guddiyaha oo kala qaybsannaha guddi kasta wuxuu ku shaqo leeyahay howl guddiyada ay qusayso arrimahaas inay kasoo shaqeeyaan ugu dambeyntii waxaa kulanka ka hadlay guddoomiyaha xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi waxa uu ku qanciyey xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya in uu la kulmay ra-iisul wasaaraha soomaaliya arrintaasna uu kala hadlay waxaan u yeertay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga oo aan rabno inaan kolkaas wixii laga sameeyo waxaan u sheegay senataro inay joogaan oo arrintaasi inay tala ka geystaan ay rabaan kolkaa prime ministerku wuxuu yidhi waxaan soo dirayaa wasiirka arrimaha gudaha oo idinku imanaya meesha wasiirka arrimaha gudaha kolkaan ka soo baxay wuxuu fadhiyey oo uu sugayey maadaama prime ministerku uu shir kula jiray naagta wafdiga EU kula jiray uu sugayeen marka kolkaan soo baxay waxaan u sheegay inaanu ku sugayno yacni ay senatara sugayaan si kastoo u dhacday waxa weeye de kolkay go-aankii gaareen waxa xukuumaddu ay dirtay wasiirada waxwara oo hadda isoo gaaray oo dambe ma jiro Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.